أنا جاري أوجي أو قري أوجي أو درات اللي أنك تقول أنك مغنين يا بونتي اللي كتجين hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Jubbaland ee markii magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan Jiisa ayaa gacanta ku soo dhigtay Cabdifataax Nuur Cabdullaahi iyo Xasan Cabdullaahi Maxamed oo sagaalkii bishii koobaad ee sanadkan magaalada Kismaayo kala goostay gaari Toyota Hartoob ah oo ay lahayd wasaaradda biyaha iyo tamarta Jubbaland iyo qori AK-47 kuwaas oo u dhaqaaqay dhanka degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe si ay argagixisada uga iibsadaan hantida dawladda ay markaasi gacanta ku hayeen kahor inta aysan ka bixin magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxa ay xiriiro kala duwan la sameeyeen koox ka tirsan argagixisada Al-Shabaab kuwaas oo ku hagaya halka iyo goobta ay ku wajahnayeen waxayna iska dhaadhiciyeen in ay gali doonaan nolol aan inaba caadi ahayn iyadoo lagu sii ballamay in la siin doono lacag dhan $20,000 Mareykanka ah balse ay wax walba isbedeleen markii ay tageen degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe Cabdifataax Nuur Cabdullaahi oo ahaa darawalkii gaarigii ay u geeyeen kooxda argagixisada ah ahaana maskaxdii barnaamijkan sida weyn uga shaqeysay hadda wax walba waxa ay ku noqotay filan waa'iye ama kaag maadaama uu gacanta ugu jiro hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Jubbaland markan waxa uu ii sharaxayaa waxyaabaha iska bedelay filashadiisii hore iyo dhagarta uu kala kulmay kooxda argagixisada ee Al-Shabaab laba nin baa saarnay xiriirkii waa la soo diray nimanka waa la soo diray waxa la ka hortagay nimankaas الله صدر ها وحيل كهرتجا موتا نجار ماتي موتا لامبر كسمتها على السوسي وأنا أودنا كدي بحالي كهرتجا موتا نجار قد دين قاري وكدقنا قاري ببارين قاري قال دين موتا وأنا هرقبتي كدي عيدا ما تجنا وتجنا تضبط على الدور ما حتجنا جلب أو الدور معها عن جلب waxaa la kulannay amniga ninka haysto oo la yiraahdo mutaawacad haatan nolol ka bedelan helaysan lahayn nolol ma helan wadan cidla ah iyo waxaan tagnay iyo wadan calaqalga argaxiso ay joogan iyo nafsadeena ku aamin weyno inay dib niisoo raacaan oo dhahan nimankan jaajuus waa taas aan u noolan wali oka horay waxay u haysteen heshiis afka baarkiisa oo ay la galeen argagixisada kaas oo ahaa in ay heli doonaan lacag dhan $20,000 Mareykanka ah iyo damaanada in ay xornimo ku mari doonaan dhulka ay ku dhuumaaleystaan argagixisada balse taasi waxba kama ruboobin oo waxay ahayd sheeko khadka taleefanka ku dhex martay argagixisada iyo ragga khiyaanada qaran ku kacay Xasan Cabdullaahi Maxamed oo sida uu sheegay sheekadan fududeystay ayaa markan ii sharaxay qiimaha laga siistay gaarigii iyo qorigii dawladda ee bulshada loogu adeegay $6,000 يعني ما كان في سجارية عادتين قرية أدب وكل فوقين واحد يسكدوا ما واحد يسكدوا ما قاب إذا لقى مالك أنا والله قاب أدب بين الله قاب أدب وحن بين الله غمين السينما أنف يعني أنا مالي سنين الواحد سببته أنا مركز هالكا كتجني ولعبت أنا السيان وينفسحين مخدع حمر عن تجني تضودي بشي صون ربلانكي تدوي سحمرتك سونكين غوري كريسن غوري بلان تكني ونين كان نو كري كدب محمران كلا تكني انا هذا waxa igu dhacay waan ka sheekeynaa shakhsiyan marka ninkan oo la qabtay oo idin amniga qabteen aniga waa ligu soo reed guriga ma joogin waan ka maqnaa gurigiyo aniga aan ka maqanahay maqal ina ciidan imaadeen aan isdahay inaan baxsado in gaari baan wacay afguy yaan gaari ka raacay meelaha inaan iskaga soo baxo Kenya aado waxaan afkuy 3 habeen bari waan ka tagay waxaan marnay meel la yiraahdo shanta jid oo hawaaya marnay arbo marnay bu'aala buntida bu'aala ilaga digay gaari iyo ani gaari u geey oo qori u geey oo daraat leen ka tagay bil aan ka maqnay ya buntida ilaga digay buntada saacada ilaga digay waxay ahayd hal saac oo subaxnimo hal saac oo subaxnimo ilaga digay ilaa 7 saac ya meel ay fariisan 7 saac yimaadeen إلا هبينك شن صعب برامج أو حرنا شو حرنا وحنا دبعتها حد أدو شيء يجرس كركي كم هذا لو كرك لك درم أو عقاب نمك أو قاضي أو حندي الدولة دبعتها يجرس يعني واحد الكريم مقام 6 بلوت طوني شان شو حرنا si wada jira ayay uga qoomeynayaan labadooduba waxayna fariin adag u dirayaan dhalinyarada ku haminaysa inay argagixisada wada shaqeyn la yeeshaan ama wax un ay wadaagaan waxaan fariin u dirayaa ragga ka dambeeya askar ha ahaadaan ama wasaaradaha u shaqeeyaan ama wasiirraha la socdaan ama madaxtooyaha joogan ana la qalda dib yaa loo qaldin
waddanka waa waddankeenna amnigu waa amnigeena qaladka maanta aniga aan ku dhacay dib dambe yaa loo gelin waa kii wasaaradda waxa la jiray Jubbaland ay soo qabato halkan la keena ugu dambeyn xaqiiqada waxaan u sheegayaa dhibaato inta la eg shabaab anaga kala kulan dhabtoodana soo taaban in dadka ay khaldin anna lagu kasoomi inaba arxam ay leeyahay ballana ay haysan intaasan dadka ugu digaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha Jubbaland Aadan Axmed Xaaji ayaa warbaahinta Jubbaland u sharaxay sida ay gacanta ugu soo dhigeen hay'adaha amniga Jubbaland raggan oo muddo lagu raad joogay ugu dambeynna gacanta lagu soo dhigay halkan sida aad arkaysaan waxa jooga niman maxaabiis ah nimankan waa niman khawaarijta al-shabaab baabuur ay dawladdu leedahay halkan kala baxsaday oo u geeyay jilib waqti badan iyo juhdi badan bay ciidamadu geliyeen iyaguna kumaysa guulaysanin waxyaabihii ay sameeyeen waa la soo qabtay ciidankaa soo qabtay meelo badan bayna mareen oo intaas iyada maxay ahayd xilligii ay baxsadeen sanadkan bilowgiisii bay ahayd markay gaariga halkan kala baxsadeen iyo qoriyo dawladdu leedahay dawladdu intaa way daba socotay meelo badan bay mareen meel kastoo ay mareenna waa la soo qabtay maantana waa u jeedaan hortayda ayay taagan yihiin waxaan u sheegaynaa khawaarijta meel kastoo ay tagto iyo qaab kastoo ay u shaqayso dhagarteeda waan la soconnaa waana la soo qabanayaa gacan biraa lagu soo qabanayaa sida hadda kuwa maanta loo soo qabtay yaa meel kastoo ay jiraan loo soo qabanayaa cid kasta tusaale ay u tahay in lagu daydo iyaga maanta waxa ay sameeyeen in laga waantoobo ciddii dawladdaasi dawlad indha quraanjay leedahay cid kastoo isku dayda inay ka baxsato kama baxsan karto marka waxaan uga digaynaa dadka moodaya al-shabaab iyo khawaarijtu inay yihiin meel loo hoydo oo loo dhuunto ma aha khawaarijtu iyagaa dhuumasho ku jira saacadahoodii ugu dambeeyay ku jiraan gabagaba insha allahu tacaala waqtiyo dhowna iyagaas ka soo afjarmi doona cid kasta cidnana ma nabadgelin karaan nimankaasi waxay kula heshiiyeen ee ugu tageen ee naftooda biimeeyeen naftooda haligayaasha ah wixii maxay ahayd ay shalay ay u ballan qaadeenna ma aysan siinin been bay u sheegeen iyagana maanta gacanta dawladday ku jiraan sharcigaa la horgeyn doonaa sharciga wax alla wuxuu siiyo yay heli doonaan abaalkoodaa la marinayaa cid kasta waxaan uga digaynaa in maxay ahayd laga waantoobo in khawaarijta xiriir lala yeesho in laga waantoobo in shabaab iyo khawaarijta maxay ahayd loo tago lala shaqeeyo maxay ahayd meelaha ay joogaan in laga shaqeeyo waan ka digaynaa cid kasta oo maanta maxay ahayd iyaga kamid ah waxaan ugu baaqaynaa inay isu soo dhiibaan dawladda inay gacanteeda isu soo dhiibaan dhalinyarada la khalday waxaan leenahay iskaga soo carara nimankaasi waxba ma nabadgelin karaan iyagii baa fara ku gabada iyagaa meelay ku gabadaan iyo meelay istaagaan la howlgalladu way socdaan wayna socon doonaan inta lasoo afjarayo hay-adaha amniga gacanta ka geystay in lasoo qabto waan u mahad celinaynaa waana abaal marin doonaa insha allahu tacaala raggii iyo dumarkiiba ciddii gacanta hay-addii gacanta ka geysatay